waqtigan la joogo aad ay fududahay inaad barato programmingka samaysano projects aad leedahay hadday noqoto adeegsiga AI-ska casharada aad koobadeed ka heli karto internetka iyo dhammaan resourceska kale aad heli karto haddana iyadoo ay taasi jirto waxaad arki kartaa inuu weli adag yahay dhalinyaro badanna weli waa ku adag yahay programmingku sababtu maxay noqon kartaa xalkuse waa maxay muuqaalkeena maanta ayaan arrimahaasi kaga hadli doonaa soo dhawaada dhalinyaro programmingku maanta waxuu marayaa heer aad u sareeya taasna waxay ka dhigtay mid aan dhammaad lahayn waxaad si sahlan u heli kartaa waxyaabaha aad u baahan tahay sida luqado fudud awoodna leh frameworks tools AIs cashiro iyo dhammaanba waxyaabaha kale aad u baahan karto haddana taas laftigeeda ayaa caqabad cusub abuurtay haddaynu sanado kooban dib u noqono programmingku waxuu ahaa mid leh jiho cayiman waxaad dooran luqad programming waad baran kadibna sanado badan ayaa luqadaasi ku dhegnaanaysaa iminkase waxaad ku jahwareeraysaa toolska cusub ee sida joogtada u soo baxaya su-aashuna iminka way ka ballaaran tahay keliyata sidii programmingka u bartaa balse waxaa ka muhiimsan sida programmingka ugu baran kartaa hab focus leh oo aada marba trend raacayn aynu isla aragno waxyaabaha ka dhigay programmingka xilligan mid sahlan iyo waxyaabaha adkeynaya in dhalinyar badani ulka gaari karaan fiilkan okay dhankan waxaa ugu horeeya waa internetka oo xilligan noqday macalinkaaga xilliyadii hore waxaa qasab ahayd inaad wax badan ka dhex raadiso bugaagta laga qoray luqadaasi ama tagto goob khaas ah oo lagu barto programmingka iminkase waxaad keliyata u baahan tahay inaad internet ka dhex raadiso luqadda u baahan tahay adigoo helaya kumanaan muuqaal oo YouTube websites free iyo xitaa AI ku sharixi kara waxyaabaha u baahan tahay oo dhan ma ahan keliyata in AI ku qori karo codes balse waxuu ku bari karaa conceptyada u baahan tahay waxuuna kula xalin karaa caqabadaha ama errorska ka soo wajaha programmingka waxyaabaha sidoo kale xilligan programmingka fududeynaya waxaa ka mid frameworkyada iyo librarieska xilliyadii hore markaad rabtid inaad tusaale ahaan samayso website waxay ahayd inaad qortid codeska oo si yar kasoo bilowdid iminka taasi uma baahnid frameworks iyo libraries ayaa taasina kaa caawinaya framework waa structure diyaarsan oo kale yacni waxuu ku siinayaa structureka websiteka ama applicationka oo diyaarsan kadibna si fudud ayaad codeska ugu dhex qori kartaa libraryna waa functionno diyaarsan tusaale ahaan waxaa functionska ka mid noqon kara kuwa xisaabta oo kale uma baahnid inaad markasta qortid functionkii already hore ee lagu diyaariyey waadna isticmaali kartaa waxaa iyaguna meesha ka maqnay oo xilligan aad u fudaynaya programmingka communitieska waaweyn sida Stack Overflow, Reddit iyo GitHub waxyaabaha garan weyda oo dhanna waxay u badan tahay in qof hore u soo geliyay xalkooda aadna si fudud u raaci karto xalkaasi haddaynu taasi kaga nimaadno waxyaabaha xilligan aadka u fududaynaya programmingka aynu haddaba dhankan kalena wax ka tilmaamno waxa ugu muhiimsan dhankan kale waa optionska ama doorashooyinka aadka u badan iyo waqtigaaga oo kooban waxaynu tan ula jeednaa caalamka oo dhan xilligan wax ka buuxa options badan taasi oo abuurtay caqabado badan meel dhowba haddaynu ka fiirino haddii hal saac dhahdo Netflix daawo waxaa 20 ama 30 daqiiqo ka qaadanaya si aad u heli lahayd muuqaal fiican oo daawato programmingkuna sidaas ayuu noqday Python ayaad barataa mise JavaScript ka waran TypeScript ama waxaad barataa frameworkska sida React iyo Django mid kastana markaas dhahdo faa'iidooyinkiisa waad ku sii wareeraysaa tayna waxay si weyn caqabad ugu tahay dhalinyarada ku cusub programmingka xitaa markaad doorato luqad waxaad weli oranaysaa malaha luqad khaldan ayaa dooratay waxyaabaha sidoo kale programmingka adkeynaya xilligan waxaa ka mid luqadda aad doorato keligeed maahan waxaa la socda tools kale oo iyana muhiim u si aad luqadaasi u isticmaasho tusaale ahaan haddii JavaScript dooratid markaasi soo baxayaan waxyaabo badan laga yaabay inaad xitaa hore u maqal sida Node.js ama NPM Webpack Babel iyo kuwa kale ayaa soo raacaya taasina waxay sii abuuraysaa jahwareer kale AI-ga laftiisa ayaa haddaba qayb ka waxyaabaha adkeynaya programmingka sidee dhalinyaro badan ayaa isku hadlaya keliyata AI-ga iyagoo aan muhiimad siin barashada asaasiyaadka luqadaha programmingka AI-guna si nooru soo xusnay waa tool marka uu kood ku qoro haddii aadan garanayn si aad u adeegsan lahayd iyo haddii errors dhacaan si aad u xalinsan lahayd waqti badan ayaa laga yaabaa in halkaasi kaaga lumo haddaba qodob intaasi oo dhan ka saameyn badan ayaa dhankani ku jira waana wax loo yaqaano imposter syndrome social media waxaa kor u qaaday isbarbardhigga markaad aragtid qof soo geliyay post kaga waramayo projectyaal qurux badan oo diyaariyey inuu aqaano 10 framework waxaa aad u fudud inaad dareento in lagu dhaafay oo aad jabto xaqiiqadu maxay tahay xaqiiqadu waa in qofkaas uu soo halgamay meesha uu maanta ka joogo programmingka qof kastana uu Google gareeyo xitaa syntaxka basic markaad ku cusubtay programmingka waxaa fudud inaad dhahdo wax kasta waan xifdinayaa balse xitaa markaad professional tahay weli Google-ka waad adeegsanaysaa xitaa waxyaabaha basic waad u adeegsan doontaa laakiin marka natiijada uu lagu tuso ee aadan ogeyn halkanka loo soo marin natiijadan way fududahay inaad dareenkaasi dareento hagaag waxyaabahaas oo dhan kadib xalku muxuu noqonayaa sidee baynu labadan dhinac isku miisaami karnaa ugu horeyn ka bilow barashada hal luqad ama hal framework kuna dhegnow muddo uma baahanin inaad wax kasta taqaanid bilowga hore baro asaasiyaadka luqadaasi kadibna u gudub qaybaha kale luqadaasi
qodobka labaadi waa in programming uusan ahayn kaliya xirfad aad mar barato ee uu yahay sidii safar oo kale waxa xaqiiqo ah in markasta u baahan tahay wax cusub baratid marka ku dadaal inaad faham fiican ka qaadatid luqadda aad baranayso si aad ula qabsan karto waxyaabaha cusub ee soo kordha adeegso AI-ga balse u adeegso si aad kor ugu qaaddo xirfadaada waxna uga baratid qodobka ugu muhiimsanina waa haniyad jabin ma jiro qof programmer ah oo aan soo marin halkaad maanta joogtid ee bilowga ah muuqaalkeena maanta intaas ayuu ka egyahay waxaan rajeynayaa in muuqaalkani wax badan ka bedeli doono si dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku cusub programmingku horumar uga gaari lahaayeen xirfadda programmingka ha ilaawin inaad muuqaalkan la wadaagto asxaabtaada mahadsanid